bandhig faneedkan lagu dhigay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayna dhigaysay fanaanada caanka ah Hibaaq Maxamed Cabdullaahi ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood mas'uuliyiin kale iyo boqolaal shacab oo ka kala yimid xaafadaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir abwaanada ayaa halkaas ku soo bandhigtay heeso wadani u badan oo ku baraarujinaysay shacabkii bandhigeeda ka soo qayb galay xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in fanaaniinta Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed haddii ay colaadi qaraarkeeda la arkin nabad lama jeclaadeen dadka Soomaaliyeed dawladnimo la'aan waxay tahay markii la ogaadayna maanta waxa la jeclaaday dawlad markii colaad la arkay waxay tahay iyo dhibkay leedahayna waxa la bartay nabad waxay gashay waxay gudo gudoomiyaha degmada Waaberi Axmed Meere Makaraan ayaasna wuxuu tilmaamay inuu ugu tala galay in dadka reer Waaberi oo xasuusiyo muhiimadda wadanimada ay leedahay waxa maaragtay go'aan ku gaarnay ama aan go'aansanay haddaan ay dadka degmada Waaberi inaan soo dhaweyno kuna soo dhaweyno kelmadaheeda ka turjumayo wadaniyada iyo muwaadinimada iyo dareenkeeda qaaliga inaan ku soo dhaweyno qof kastaba dareenka uu la yimaado ayuu dadka ku kasbaha qof waliba sida uu maartay meesha uu ka joogo waxa dadka mideeyo iyo waxa dadka ka dhaxeeyo qofka dareenkiisa hadii uu tilmaamayo waa qof qaali oo ummadda agtiisa qiimo weyn ku leh waxaan leenahay walaasheen soo dhawow mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad waa markii afraad oo muddadii yarad ay joogtay abwaanada caanka ah Hibaaq Maxamed Cabdullaahi bandhig noocan oo kale ah ay ku dhigto gudaha magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdullaahi Hon Cable TV magaalada Muqdisho